idan waxaan leenahay salaadu haddii dadku ay fahmaan oo si fiican loo fahmo waxaan leenahay islaamnimadaynu dadka la raadinayna waa salaadatan islaamnimada dhabta aynu dadkan la raadinayna waa inay salaadan fahmaan waa in salaadan la garto waa salaadatan baynu leenahay wixii gaal iyo muslim lagu kala gartay waa salaadatan wixii munaafiq iyo mu'min lagu kala gartay waa salaadatan wixii lagu kala korraysiyey mu'miniinta laftooda ay manaasisha ku kala yeesheen oo kala sarreeyeen waa salaada baynu leenahay waxa huwiyadaada sheegaya dadnimadaada iyo cidda aad ka tirsanta iyo meeshaad abtirsiintaadu gasho waa salaada waxa sheegaysa waa salaada ta sheegaysaa baynu leenahay inaad addoon tahay ilaahayna uu rabbi kuu yihi inaad adigu addoon tahay ilaahayna uu rabbi kuu yihi waa salaada taa sheegaysa baynu leenahay inaad rumaysan tahay cid kale oo la gargaarsadaa inaanay jirin isaga mooyaane iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin keligii inaad kaalmo ka dalbayso isagoo qura inaad gargaarsanayso sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu inagu yidhi subxaana wa tacaala wastaciinuu biالصabri waالصalaa wainaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin gargaarsada baa la yidhi sabir iyo salaad salaadu waa shaygii keensanayey inaad rabbi toos ugu xidhnaato inaanad cidnaba kale marin ilaahay subxaana wa tacaala inaad toos ugu xidhnaato walidalik baa waxaan leenahay salaada haddaynu si fiican u garanno waa macaalimi tarbiya kuwa ugu waaweyn baynu leenahay maantana waxaa laga yaabaa haddii nin idin yidhaahdo daris salaada ku saabsan in la yidhahdo dee salaadda waa iska wada naqaana aan cidi u hanqaltaagin inaan wax weyn la moodin marka salaada laga warramayo inaan dadku salaad dadka ugu yeedhin iyadoo waxa maqani uu yahay baynu leenahay salaadanun iyo fahamkeed iyo tukashadeed iyo hagaajinteed haddii tan meel lagu hubiyo waxaan isleeyahay islaamnimada intii ugu badnayd meel baa lagu hubiyey haddii iyada si fiican loo garto oo ay si fiican inooga dhaadhacdo walidalik salaadu inay wax walba tilmaamayso waxaa kuu sheegaya nebi shucayb gaaladii ka hor timi maxay ku yidhaahdeen qaaluu yaa shucaybu asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una aw an nafcala fii amwaalina maa nashaa innaka la anta alxaliimu arashiid waxay yidhaahdeen nebi shucaybow ma salaadaada ayaa ku faraysa bay yidhaahdeen inaanu ka tagno wixii aabbayaashaya caabudayeen hayo salaadaa dadka faraysa iyaaka nacbud baaba la leeyahy salaadaa faraysa in alloo qura laga dambeeyo salaadaa faraysa inaan dhaqaalaha sidii la doono loogu takrifalin masale iqtisaadiyay ka warramayaan markaasay leeyihin ma salaadaa ku faraysaa nacam salaadaa faraysa in ilaahay looga dambeeyo wuxuu yidhaahdo waa xalaalla la xalaalaysto wuxuu yidhahdo waa xaaraanna la xaaraantinimeeyo sidaa awgeed waxaynu tilmaamaynaa hadday salaadu noqoto taasi qalbiga ka timi taasi qofka muslimkaay uu ilaahay hor taagan yahay taasi qofku aanu dareen kale qabaynin xataa bacdi salaf la tilmaamo war qaar baa dhakhaatiirtooda waxay yidhaahdeen bunjaan ku siinaynaa baa lagu yidhi zayn alcaabidiin baan rajaynaya inuu yidhi bunjigu waa bahashan lagu sakhraamo bahashan morfiinta kan dhirta laga soo guro geedkan yaree midhihiisa markay dhiidhiijiyaan ka mida mukhadaraadka la cabo mukhadaraadkaasi waxaa kaloo loo isticmaalaa in dadka lagu suuxiyo marka la qalayo dabeetana nabar baa la yidhi baa adinka kaga yaalay nin dhakhtara baa wuxuu yidhi waxaad u baahan tahay qalitaan baan rabnaa inaan kuu samayno si qalitaanka loogu sameeyo baa la yidhi bunjaa lagu siinaya oo bunjigu caqliga ma dooriyaa buu ku yidhi markaasaa la yidhi haa markaasuu yidhi cabbi maaya iga daayo salaad baan gelayaa markaan ilaahay is hortaago fafcal maa badaa lak wixii adiga kuu muuqda markaa yeel salaad buu galay markaasaa la qalay dabeetana adin laga qalay waxaa laga yaabaa inaad hariibsato insaanka maskaxdiisa waxay soo daysaa ama jidhkiisa wuxuu soo daayo hormoonno tiro badan oo marar badan xanuunno badan ilowsiin kara laakiin xadiidkii dee abi daawuudkaba ku yaallay ku noqday saxiixa xadiidkii labadii saxaabiye ilaalinayey waxay ilaalinayeen ciidankii muslimiinta ciidan muslimiina oo ka soo noqday gaalo meel la ysku galay soo noqday ayaa nin gaali soo dabagalay oo ku ballan qaaday inaanu noqonin inuu muslimiintaa waxyeelo mooyaane
dabeetana laba saxaabi baa la yidhi gaadhka qabta labadii saxaabi oo gaadhkii haya oo saxaabadii kale iska seexdeen ayaa labadii nin mid yidhi war waa yaro jiifsanayaaye ay kici dabeetana labadii nin ee gaadhkaabaa mid yaro jiifsaday kii kalena salaad buu iska galay salaadda isagoo ku jiru kii arkay inuu kaasi salaad ku jiro dabeetana gamuun buu ku dhuftay xabaddii koowaad baa mudday uma dhaqaajinay salaaddiisiibuu iska waday kii labaad buu ku dhuftay uma dhaqaajinay salaaddiisiibuu iska waday kii saddexaad buu ku dhuftay saddex gamuun markay ku dhacday ayaa xilligii rukuucda la soo gaadho wuu rukuucay dhiiggii isaga ka qulqulay ayaa camaar ibnu yaasir kani waa cabaad ibnu bashir camaar ibnu yaasir oo jiife toosiyey dabeetana ninkiina markuu foorarsaday kii jiifayna uu sasanqadhay buu ninkii gaaleed iska cararay camaar baa markuu indhaa kala qaaday wuxuu arkay saxaabigii oo dee dhiig ka da'ayo waar maxaad ii kicin weyday buu yidhi inta waxaanoo dhami kugu dhacayeen wuxuu yidhi waxaan nacbaystay inaan qur-aan baan akhrinayo kala gooyo salaad buu ku jiray imaam albayhaqi wuxuu soo naqlinaya inay kahaf ahayd suuraddu akhrinayo waxaan necbaystay buu leeyahan yacni salaaddu mansiladaasay ka ahayd ay nolosha ka jecel yihin nolosha dhammaanteedba uu ka jecel yahay saacadduu ilaahay hortaagayay subxaanahu wa tacaala saa daraaddeed bay noloshiisa raad ku lahayd sidaa awgeed baa salaaddu marka ay noqoto tuu mansiladii loo baahnaa gaadhay ilaahay qur-aanka muxuu ku leeyahay ina asalaata tanha can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu baa la yidhi waxay reebtaa alfaxshaa waalmunkar xumahay dadka ka reebtaa waa markay mansiladan yeelato waa markay dhadhankan yeelato waa markuu qofku garto inuu rabu samaawaati waalardi hortaagaye waa markuu qofku garto inuu ilaahay maalin kasta la xidhiidhayo waa markuu qofku garto inuu ilaahay yahay cidduu hortaagayo uu baryayo cidda uu ku leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa markuu qofku garto inuu isdhiibay oo wax uu ilaashado dambe aanay u hadhin ee salaadda ay tahay waxa uu ilaalinaya salaadda ay tahay waxa uu ilaalinaya walidaalika ayuha alaxiba waxaynu leenahay salaadaas haddii sidii islaamku uu jideeyey loola yimaado oo kitaabka iyo sunnaa la waafajiyo oo aan shakliga iyo hay-adda sare laga waafajine dhammaanteed la waafajiyo madaahirteeda aan la ilaalin oo kudhe madaahirteedana la ilaaliyo muuqaalkeeda sare rukuucdeeda iyo sujuuddeeda iyo qaabkeeda iyo hay-adeeda oo dhan la ilaaliyo isla markaa la ilaaliyo macaanideeda iyo waxaan lagu hadlayo iyo ilaahay in la hortaagayo subxaana wa tacaala la garto iyadaa ah baynu leenahay waxaynu u baahan oo dhantayna baraysa iyadaa quwa akhlaaqiya waxaa toosinaya dhaqankeenna iyo akhlaaqdeenna iyadaa ah baynu leenahay waxa ina baraya walaalnimada markaynu xayiga isugu nimaadnee masaajid yar isugu nimaadnee jaamaca isugu nimaadnee salaad ee saf aad gasho ee safka aad hagaajisato ee haddaad sufuufta hagaajisato ilaahay qalbiyadeenna waa isku toosinaya haddaynan hagaajinna ilaahay waa kala jeedinaya ee uu noqdo meel ay isugu yimaadaan kii madaxweynaha iyo kii wasiirkaha iyo miskiinka iyo faqiirka iyo taajirka iyo meelaan cidnaba laga waayaynin ay noqoto meel aynu musaawaadka iyo dadnimada iyo walaalnimada ku baranno meel ay noqoto bulshada muslimkaahi waa naadiga rasmiga ay isugu yimaadaan ee maalintii 5 jeer soo galaan masaajiddu halka bulshooyinka kale ay u baahdaan naadiye dadku isugu yimaado garoonku badeed iyo meel heesaa ka tuma iyo waxaasi oo dhan baahi badan looma qabo hadday salaadu tii nebi maxamed tahay laa kubad walaa mid kale baahi looma qabo waayo nawaadir rasmi oo maalintii 5 goor qofku muslimkii gala buu leeyahay oo ah masaajidatan iyadaa meesha mujtamacu isku barto iyadaa meesha la isugu yimaado meesha lagu xidhiidho qof kastoo aad u baahato markuu muslim dhaba dadku yahay 5 salaadood mid unbaad masaajidka ka helaysaa maca madaxweynaha cidiba ka hadh libdhi mayso cid walba waad soo helaysaa yacni waa bulsho isku xidhan oo meel qura u wada jeeda iyadaa ah baynu leenahay waxa nidaamkayna baraya iyo kala dambaynta in nin quri inoo taliyo imaamooyinteenna kale aynu daba taagno nin quri inuu waktiga inoo hayo inagu dee soomaalida waa iskaga qabsanaa war salaada miyaad qiimayniyo maxaad uga kici weyday qolada meesha haysataba maba eegnaba haddaad kan maamulkiisa raaci weydo ku ka sarreeyana weligaa maamulkiisa raaci mayso yani maamulka halka lagu barta waxaa ka mid a masaajidan
inaynu garanno imaamka khatiibka mu'adinka dadka ina hagaya ina hogaaminaya aynu u garannay inay ilaahay xaggiisa inoo hagaan inaynu uga dambayno iyadaa meesha aynu nidaamka ku baranayno iyo dadku kala dambaynta ay ku baranayaan iyadaa ah baynu leenahay xata ariyaada waxayna yidhaahdaan iminka waa akhiru zamano cunnada la isku badiyey dabeetana dadkii baa buurbuurtay markaa qofku kama maarmo baa la yidhi inuu ordo iyo jenistic cayaara iyo waa kan adibada dhab tahay waxa ay tilmaamayaan muslimka salaada si fiican u tukada ee salaada iyo sameeya bay yidhaahdeen jamaca inuu tago inaanu exercise kale u baahnayn salaadu gurigaaga ugu dhow waxaa laga yaabaa 5 daqiiqo in laga soo socdo haddaad 5 jamac ilaaliso 5 daqiiqana waad soo soconaysaa 5 daqiiqana waad sii soconaysaa waa 10 daqiiqo soo maaha 5 salaadood ku dhufo waa imisa 50 daqiiqo nin 50 daqiiqo lugeeyay ma wax kale u baahan yahay imka waxa la yidhaha nus saace orod iyo nus saace luge war nus saacana ha lugeyna 5 salaadood masaajidka tag intaad gaadhiga iska dhigto 5 salaadood ee jamaca ood masaajidka xaadirto ayaa kuugu filan bal atibada rasmigii waxay maanta tilmaamayaan sujuudan iyo rukuucdan iyo qaabkan jidhka loo fadhiistaa xataa inay yihiin qaababka ugu fiican ee circulationka dhiig wareegga bini aadamka ka qayb qaata fadhiyadana taxiyaadka iyo jalsada dhexe iyo kuwan saa loo fadhiisanaya idan xataa tib uma baahnin riyaado ina bara waxay leenahay war salaadaasi haddii aynu sidii nebi maxamed sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddaynu u ilaalino oo ay noqoto sidii kitaabka iyo sunnaha ku qoraa waxa ay noqonaysaa nolosheennu waxaynu uga baahnayn oo dhan baynu helaynaa nolosheenna waxaynu uga baahnayn oo dhan baynu helaynaa walidaalik waxaynu leenahay salaadu maadaama ay noocaa tahay waa rakiiza ugu waaweyn ama waa maclam macaalimu tarbiya alislaamiya ugu waaweyn saa daraaddeed ba qofka muslimka ah noloshiisa oo dhan lala xidhiidhiyey marnaba inaanay ka maqnaanin waa cibaadaadkaasi dee gooray dhacaanba waa marka caqligu kaa tago ama dumarku inta yaray acdaarta leeyihiin ee ilaahay ka reebay haddaad xanuunsanayso haddaad bugto haddaad jiifto haddaad ordayso haddaad dagaalamayso haddaad si kastoo aad tahay inaad ilaahay ku xidhantid kama maarantid qaabka ilaahay loogu xidhbee practicalkiina waa salaadu qaabka dhabta ah ee loo wardiyo ee loo qur-aan akhriyo ee loo qofka muslimka ee salaadaha si fiican u tukada adkaar intii ugu badnaydna wuu akhriyi karaa intii ugu badnayd ee qur-aana wuu akhriyi karaa waayo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xataa qur-aanka si uu akhriyi jiray dee waata laynoo tilmaamayo sunankiisa intuu salaad sunna a galay inuu baqro dhameeyey oo alicimraan dhameeyey oo nisaa dhameeyey oo qur-aankaba dee in badan hal ragca uu ku tukaday idan waxay ahayd qaab ay u wardiyaan innaga salaadda waxaa laynaga baray inta ugu yar waxaynu haysanaa salaadu inta ay ku ansaxdo ama inta ugu yar 3 goor baa subxaana allah war 3 waxbaa odhan haddaad doonayso milyan jeer dheh wax kaa mamnuucaya ma jira waa qaab loo wardiyo ilaahay loogu xidhmo adiga maxaa kugu xidhan mar kasta inta ugu yar haddii la yidhi nebi maxamed 4 jis 5 jis buu hal ragca ku tukaday in leegna wuu rukuucsanaa muxuu akhrinayay inta leega wuu rukuucayay awraadu muddo akhrinayay waa subxaana allah daan wixii la waday in leeg markuu sujuudsanaa muxuu akhrinayay subxaana allah uma la akhrinayay de sida daraaddeed salaadu waa meesha qofka muslimkii xisbigiisa qur-aanka uu ku akhriyo oo wardigiisa uu ku akhriyo oo exercisekiisa uu ku samaysto oo wuxuu u baahayo o dhan uu ku sameeyo idan waxay leenahay hadday salaadu haddaynu siday tahay u ilaalino sunno iyo faralkeedaba ilaahay in lays hortaago haddaynu say tahay u ilaalino waa waxaynu u baahanay walidaalika ayuha alaxiba dariska kan waxaan caawa u tilmaamayaa dad badan baa waxay garan lahayiin wixii dadkaba loogu yeedhi lahaa halka la iska xidho halka la iska qabo maxaynu samaynaa waxaad samaysaa adna si fiican u tuko dadkana salaada bar mujtamaca kan aynu la noolay intaan tukan baa ka badan inta tukata mujtamaca kan aynu la noolay inta tukata inta salaada saxda iyo inta aan saxin anigu waxaan isleeyahay inta aan sixin baa badan mid faatixa maroorsan ku tukada iyo mid arkaanta kale marooriyaba markaynu eegno mujtamaca kan qof kastoo inaga midi daaci buu noqon kari lahaa diin buu sheegi kari lahaa waayo mid aad salaad u saxda maad weydeen mid aad faatixa u saxda maad weydeen mid aad salaada barto oo ka soo qabato suuqa maad weydeen hamoodin markaad intaan qabanayso inaad wax yar qabanayso waa wixii diinta ugu weynaa bacda tawxiid gaal aad islaamnimo ku soo darto wixii ku xigay dee waa salaada qof barto
idan tii baa dayacantay markaase waxaynu raadinaynaa qadaayaad kaloo siyaasiya iyo shirka maa laga qayb galo iyo halkan maa laga qayb galo war dadkan masaajidda ku ururintaad waxa kale iska dayso bale midhadhka iskaga ururinaya masaajiddaasi in kaleba uu garan waaye ayaa la yidhahaa waa tabliiq kuwan iyo wax badan ma yaqaanin salaadun bay sheegaan dhaafin maayaan dadka salaadka oo adigu haddaad salaadiiba ugu yeedhi weyday maxaad sheegaysaa yani waxa la sheegaya ugu weyni waxay ahayd bacda tawxiid in dadkan salaad la baro bacda tawxiid in dadka kan salaad la baro walidalika ayuha alaxiba waxay leenahay salaadda waa waxa mujtamac muslima sameeya salaadda waa waxa qof fardi muslima sameeya salaadda waa waxa bii'a islaamiya samaysa salaaddu waa waxa dawlad islaamiya samaysa salaaddu waa dhaqanka iyo camalka laga rabo dawladda islaamiga inay qabato waxaynu dawlad islaamiya u raadinaynaa waa inay dadka salaada barto aladiina in makannaahum fi lard aqaamu salaa ilahay wuxuu ina leeyahy waa kuwa haddaanu dhulka makansiinno salaada ooga idan salaaddii waynugu dayacan tahay ragoo u agteena iyo dumarowba inana aan hagaajinno tii nebi maxamed ka dhigno salawaatu ullahi wasalaamu calayh dadkana aan si dhabo salaada ugu yeedhno wallahu aclam wabillahi tawfiiq weliba aan kelmad kalena idin raaciyo kelmadda aan rabo inaan idin tilmaamaa waxa weeyaan magaalada hargeysa waxaan arkayaa salaada iyo aadaankeedu in meelo badan ama muran badani uu ku jiro oo aan si fiican loo ilaalin awqaadda markaan taa leeyay waxaan uga jeedaa laba arrin midun baa fiicnayd inaynu ku dhaqanno qaabkii culammadeennii hore iyo dadkeennii hore ay u dhaqmi jireen ama qaabka mujtamacaadka mucaasirkii maanta ay wuxuu xisaabiyaane loo dhaqmo qaabkii culammadeennii hore ay u dhaqmi jireen waxay ahayd inay si rasmiya u ilaaliyaan cadceedda iyo hadhkeeda iyo soo baxeeda iyo dhicisteeda innagu waxaynu iska rumaysannahay 12 waa gaadhay maxaa salaada loo addimi waayaa magaaladuba kugu qabsanaysa markaad masaajidka soo gasho 3 bay maraysaa iyo badhkiiyo maxaa loo tukan waayey xagee ka timi 3 iyo badh in lagu tukado ama 2 iyo badh in lagu tukado ama 12 in lagu tukado cadceeddu soo baxda hadh baad yeelataa wax waliba hadh buu yeeshaa hadhkaasi wuu soo gaabtaa cadceeddu markay dusha marayso ayuu hadhku ugu gaaban yihi waa waqtulistiwaa waxay yidhaahdaan waktigaa marka ay hadhku noqosho bilaabo inuu dib u dheeraado markuu bilaabo ayay soo gashay salaaddii duhur haddaad hadhka garan weyda maxaad ku calaamadin dadku dee intay ul taagtaan ama wax taagtaan bay calaamadin jireen oo eegan jireen hadhku halka ugu dambaysa uu joogo dabeetana way ka raaci jireen hadhowna sanadkao dhan waa baran jireen saasay ku dhaqmi jireen qaab kale aad u calaamadso fudud baan kuu sheegaya markaynu istiwaaga sheegayno soo maaha cadceeddu marka ay santarka dhaaftay maalinta barhtankeedii soo maaha maalinta barhtankeedu halkuu ku dhacaa cadceed soo baxa eeg subaxii markay cadceeddu soo baxayso bal saacaddaada u eg badh markay soo tidhi qor cadceed dhacana eeg markay dhacdana qor cadceed soo bax iyo cadceed dhac maxaa u dhaxeeya maalintii oo dhan socankaa maaha ka soo qaad iminka 6 iyo badhka iyo 6 iyo 5 iyo 20 meelahaasay soo baxdaa subaxnimo kaba soo qaad inay 6 iyo badhkii saaka soo baxday hadday 6 iyo badhkii soo baxday way haddana 6 iyo rubuc dhacday maalintu waa imisa 6 iyo badhkii badh baa kaa tegay halka kan xaggoona rubuc baa kugu darsamay dadminis waa 12 saacadood oo rubuc la maalintaa markaa habeenkii ka yar habeenkaa badan oo 12 saacadood iyo rubuc noqonaya maalintiina waxay noqonaysaa maxay 12 saacadood oo rubuc la 12 saacadood oo rubuc la bal laba u qaybi waa imisa waa 6 saacadood oo 7 daqiiqo ama 8 daqiiqo dhiman saacadka noqon mayso 6 saacadood oo 8 daqiiqo dhiman haddaad tidhaahdo 6 iyo badhkii ku dar waa imisa noqonaysaa 6 saac oo 8 daqiiqo dhiman 6 iyo badh ku dar that means 6 marka lagu daro waa 12 badhkana 8 ka jaro waa 22 12 iyo 22 daqiiqo haddii ay cadceeddu soo baxday 6 iyo badhka oo ay dhacday 6 iyo rubuc 12 iyo 22 daqiiqo markay maraysa baa istiwaagiya waqtigii salaadu ay mamnuuc ahayd in la tukadaa hadday miridha dhaafto maxaa bilaabmaya salaaddii duhur baa bilaabmaysa tacasar maxaynu ku calaamadaynaa marka
haddaad qaabkeennii rasmiga ahaa isticmaalayso wakhtigaasi hadhku halkuu marayo qiyaas 12 iyo 20 ama badhkaa markaa aad duhurka u aadimaysay hadhku halkuu maraya calaamadii shay taag wuxuu doona ha noqdo hadhku halkuu maraya calaamadii xadiidkii nebigu wuxuu tilmaamayaa markuu hadhka dherarkiisu noqdo maxay jooggaaga socaynkaa maaha shay walba dilligiisu markuu leekaado intii markaa uu joogay intaasi waa dillu fayka dillu ziwaalka ay culammadu yidhahdaan ma fayu ziwaal lama xisaabiyo intaasaad ku daraysaa maxay ayaad joog ku daraysaa dherarka shayga aad taagtay maalan bahashan baynu taagin markii ay duhurka maraysay waraaqdaa in leeg buu ahaa hadhkeedu casarku muxuu noqonayaa waraaqdaa laga bilaabo in bahashaa dherarkeedu uu ku darsamo halkaa markuu hadhku marayo ayaa waxay noqonaysaa maxay salaaddii casar markaasay noqonaysaa hadhka yar ee samaysma meesha lagu qaldamaa waa halkan meelaha inta badan qaladku ka taagayna waa salaada casar hadhkan yari wakhtiyada wuu kala gedisan yihi jiilaalka xagaaga guga wuu kala gedisan yihi jiilaalku ugu dheeriyey innaga waddankeenna waddan walbana in buu joogaa maalan waddan aan beri joogi jiray baa waxaan qiyaasay fay-u zawaalku inta uu leegyahay 4 joog buu leekaa fay-u zawaalkiisa ayaa waktiga kan wuxuu leekaa maxay 4 joog yacni hadhku markuu ugu yar yahayba 4 joog kama yaraado 4taa joog unbuu soo socdaa wuxuun kusii darsamo mooyaane markaa waa inaan casarkaygi 4taa joog ku daraa maxay joog waddamo iga sokeeyey 2 joog buu leegyahay qaar iga sokeeye joog buu leegyahay innaga waxaa laga yaabaa inuu nus joog meelahaa noqdo sida daraaddeed wakhtiga kan jiilaalka aynu ku jirno waa wakti u baahan waayo inagu equatorka xagga sare aynu kaga naallaa marka waxaynu ka mid nahay dadka uu jiilaalka ku dheeraanaya hadhku saa daraaddeed waa wakti u baahan in fay-u zawaalka ama dillu zawaalka in la ilaaliyo si aynu hadh ugu dari karno jooggiisa sida awgeed waxaan ku talinayaa 2 midun ama iminka dee dhallinyaray mu'adiniintii isugu baxday dhallinyaroy ama tii odayada isticmaala oo cadceeddaa u baxa oo ilaaliya oo gu iyo jiilaal kale garta oo ku xisaabtama ama taqwiimaadkaasi laydin xisaabiyey ee wakhtiga lagu xisaabiyey raac xataa haddii aad raacaynin ku qiimayso eeg bal subaxii cadceed soo baxa wakhtigan uu ku qoray ma ku soo baxda wakhtigan uu dhicista ku qoray